munaasabadani oo ahayd munaasabad ballaaran isla markaana ay soo qaban qaabisay shirkadda Haas Petroleum iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagaga hadlayay sidii loo maalgashan lahaa deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka qabsoontay Hotel Radisson Blu ee magaalada Dubai. waxaana munaasabadani ka soo qayb galay wasiiro ka socday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Imaaraadka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani isku taga Imaaraadka Carabta. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay Abduqaadir Axmed Xuseen oo ah mas'uul ka socday shirkadda Haas Petroleum. wasiirka dakhliga tahay waa aad bay nagu fiicantay inaad joogto. annagu haddaan bahda ganacsiga nahay waxaan idinka codsanaynaa in aad noo fududeysaan maalgashiga, inaad soo jiidaan dadkii maalgashan lahaa waddanka. taasuna waxay ku imanaysaa in investment incentives loo sameeyo dadka maalgashanaya waddanka. dowladda gobolka Soomaalida in badan buu ka dambeeyay gobolada kale. maadaama uu in badan ka dambeeyay, waxay ila tahay oo codsi naga ah in dowladda dhexe aad weydiisataan si yarahe affirmative action, si gooni ah, fiiro gooni ah in loo yeesho oo waxyaabaha qaar laga dhaafo si ay goboladii kale u soo gaaraan. waxaa ka mid ah cashuurta, waxaa ka mid ah shuruucda laysamada lagu qaato oo la fududeeyo. fududeynta waxay keeni lahayd in mataqaana maalgashi fiican waddanka ka dhaco. maalgashigaasana dhali doona dakhligaad adiga mas'uulka ka tahay oo cashuur fiican laga heli lahaa. qaybta shidaalka markaan soo qaato boqolkiiba 60 shidaalka waddanka Kenya ama regionka waxaa xukumaan kamriye Soomaalida iska leh oo kamid yahay uu weyn yahay Haas Petroleum. Haas Petroleum waxaa lagu ka shaqeeyaa waddanka Kenya, waddanka Tanzania, waddanka Uganda, waddanka Rwanda, waddanka Burundi iyo waddanka South Sudan iyo Soomaaliya. qaybo Soomaaliya ka mid ah. waddanaan dhaliil lahayn ma jirto. Afrika oo dhan baa wada dhaliil leh. investmentiga xaggiisa inaynu xoojino oo aynu waddankeennii maal gashano oo ninkii kari karaya qol, ninkii kari karaya 5 qol, ninkii kari karaya intaa in ka badan nin walba uu waddankiisii maal gashado waa waxa aad ugu fiican weeye. dadka heavyweight-ka sida maartay Abduqaadir oo kale iyana aad baanu uga sugaynaa waxyaabahaas faraha badan ee maalkaas faraha badan inay waddanka xaggiisa u soo jeediyaan. saan la socono shacabka Soomaalidu waa shacab active ah, aad iyo aad ugu fiican ganacsiga aan la mid ahayn shucuubta kale ee maartay geeska Afrika. Abduqaadir Axmed Sheekh, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Dubai.